Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan walaaladii qaaliga aroornimo wanaagsan. Hadda waa noo aroor insha Allah waxaan ii rajeynayaa idinkana caafimaad inaan kusoo wada toosteen hadduu ilaahay yiraahdo. Asxaabteeda qaaliga maanta waxaan wadaa video yar oo saaki iyo shaqadii guriga aan ka qabtay subaxii insha Allah iyo waxa aan qabanayo hadduu ilaahay yiraahdo. Ugu horreyn hadda waxaan rabaa wajigayga inaan moisturizer yar mariyo sababtoo ah wajiga markii lasoo dhaqo xoogaa qaleel ayaad ka dareemaysaa. Marka qaybta hoose ayaan joogaa, caruurta qaar way jiiftaa, labana way soo jeedaan. Marka hadda waxaan rabaa jikada inaan galo. Intaan jikada galin ka hor waxaan rabaa in aan wajiga wax yar moisturizer yar siiyo insha Allah. asxaabta qaaliga hadda sidaad aragtaanba waxaa imid dhanka iyo kitchadii. Waxaan rabaa hadda quraacdii inaan u diyaariyo guriga insha Allah iyo caruurta yareerka. marka insha Allah hadda ketelka ayaan biyo yar kusoo shubanayaa oo aan rabo inaan ku karkarsado insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo. idinkana waxaan idinka codsanayaa fiidiyoyada inaad noo share gareysaan insha Allah, laagtana iska saartaan marba haddaad channelka soo gashid oo fiidiyooga daawatid laagta iska sii saar insha Allah, sharena noo dheh haddaad awoodid. asxaabta nala joogtan waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin, mar walbaba kama daalo mahadcelintiina insha Allah. kuwa kale nagu cusubna waxaan leenahay haddaad channelka soo booqato subscribe noo saar hadduu ku cajabiyo, haddaanu ku cajabino kumaba cajabininba. marka hadduu ku cajabiyo laakiin channelka subscribe ana la dhaafin, subscribe ka dhac noogu sii insha Allah, gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto walaaladana. halkan kusoo diyaarsaday waa mushaari insha Allah, boorashka mushaarida ah. waxaan rabaa in aan kariyo hadduu ilaahay yiraahdo. caagaygaana subax kasta 2 litir biyaha ah anoo kusii shubanin kama tago. marka waan ku diyaarsadaa si aan ula socdo inaan cabay iyo in kale, in 2 litir aan isticmaalay iyo in kale qiyaas ayuu caagu ku yahay. marka hadda waxaan diyaarsanayaa bakeeri biyo diirana insha Allah oo aad aragtaan. waxaan ku darsan doonaa jeex liin dhanaan insha Allah, waan sanjabiilka kuma daraayo. marka jeex liin dhanaan ayaan ku darayaa, halkaas in yar biyo ayaa igaga daato iska sii masaxayaa. marka hadda jeex liin dhanaanta ayaan ku darsanayaa, kadibna iyagoo diiran ayaan cabayaa caloosho maran oo baahan. marka sidaan hore iigu sheegayba waxaan rabaa inaan xoogaa yar, inkastoo miisaan badan uuna isaarneyn, laakiin haddana waxaan rabaa sidaan hore iigu sheegay in aan xoogaa yar caloosha ka jaro maadaama calool ilmo kasoo baxay ay yihiin. marka liin dhanaantana way u fiican tahay iyo biyaha diiran. liintana caloosha way sifeysaa, way nadiifisaa. marka iyadoo adoo baahanna inaa cabtid aad ayay u fiican tahay biyaha diiran ee liin dhanaanta leh. sanjabiilkana waa lagu darsadaa laakiin saaka kuma darin aniga. marka asxaabteeda qaaliga hadda koobkaas ayaan diyaarsanayaa biyaha diirana insha Allah, oo aan rabaa inaan hadduu ilaahay nafta nagu simo isku sii daayo insha Allah bidnillaahi kariim. kadibna waxaan gali doonaa quraacdeeni iyo inaan u diyaariyo caruurta quraac yar oo fudud marka hore insha Allah. marka hadda waxaan u diyaarinayaa boorashkan oo aan anagoo dhan wada cabayno insha Allah bidnillaahi kariim. qamadi ayuuna ka samaysan yahay sidaad aragtaanba. marka ani caruurta waxaan ugu daraa macsaro yar marka aan ka dejinayo aan ugu kariyo. macsaradana aad ay ugu fiican tahay inaa ugu dartid. marka insha Allah bidnillaahi kariim boorashkeenan ayaan hadda sameysanaynaa, kadibna quraacdeena hadhow ayaan sameysan doonaa. sababtoo ah boorashka quraac ma noqon karo keligiisa, caruurta uma noqonayo. ilmihii energy badan ayay bixinayaan, way carcararayaan, waxa waaye way hore ka baahanayaan. marka insha Allah quraacdii familkana waa wada diyaarin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. intaana maadaama aroor hore ee tahay hadda anaga saddexdeenaas aan ugu soo hor toosnay, maxaan iraahdaa ha iska sii cabaan ayaan isleeyahay, ha ku sugaan quraacda insha Allah. haddee doonaanna maba cabayaan, haaf yar markay ka cabaan labadoo qaando iska dhigayaan iyaga. marka insha Allah hadda sidaad aragtaanba u qaboojinayaa tayarta ah, laakiin iyada gacanteeda ku cunayso marka uu qaboobo. maxaan iraahdaa gabadha yar iyo wiilka ayaa soo jeedo, babyga yaraa iyo gabadha roodna way jiifaan iyo aabaheed. marka insha Allah hadda quraacdii ayaan diyaarinayaa sidaad aragtaanba. waxaan halkan ku dhaqanayaa waa qudradii oo aan rabo inaan si fiican iskaga dhaqo. ani waxaan jeclahay qudradda inaan biyaha xoog ugu furo oo si fiican iskaga nadiifiyo insha Allah, kadibna markaas aan isticmaalo. marka hadda halkan waxaan ku sameysan doonaa laxoox iyo maraqeeda ama canjeelo iyo maraqeeda insha Allah. hadda waxaan halkan ku dalacanayaa maxaan iraahdaa maraqii basashii ayaan maxaan iraahdaa daloceynaa sidaad aragtaanba oo aan shiileynaa. kadibna maxaan iraahdaa hilibkii ayaan ku darsaday, wax yaroo maraq digaagna waan ku daray insha Allah. xawaashi kalena uma baahno, kuma dari doono insha Allah. maraq digaag ka badan inaan ku daro ma rabo insha Allah bidnillaahi kariim. markay walaaladii qaaliga ila socdo daawasho wacan insha Allah bidnillaahi kariim.
marka hadda waxaan sameynaynaa insha Allah biyo yar oo kulul ayaan dusha kaga darayaa si uu hilibka usoo bislaado markuu waxoogaa hilibka karo inuu soo yaro bislaanayo aan arko ayaan baradhada iyo ku darsan doonaa insha Allah iyo kaaroodka sababtoo ah haddii aad hilibka iyo baradhada hal mar aan ku wada daro ma rabo in ay baradhada iga burburto oo maraqa uu wada raaco baradhadii marka waxaan rabaa baradhada aniga qayb haddaan doono inaan ku burbursado qaybta kalena iyadoo sideeda iyo bisil aan ku dhaafto marka inta iga wada burburi lahayd hal mar inaan ku wada daro waxa ii dhaantay inaan marka hore hilibka si fiican iskaga kariyo kadibna maxaan idhaahdaaye aan baradhada gadaal kaga darsado insha Allah aniga sidaas ayaa mar walbana maraq u kariyaa halkan waxaan ku duwanaynaa canjeeladeeni insha Allah marka asxaabta qaaliga ah waad aragtaan subaxeena maasha Allah subaxaas quruxda badan ayuu noogu bilowday anagoo caafimaad qaba insha Allah ilaahayna hanoo sii siyaadiyo caafimaadka dhammaanteenba inta bogtana Allah caafiyo ummadda islaamka ah inta dhiban dhibka Allah ka kor qaado inta baahana Allah dharjiyo ilaahay ayaan u baryaynaa marka waxa waa mar walba oo maxaan idhaahdaaye adiga aad wax cunayso waxa wanaagsan in aad yacni ummadaha baahana aad u duceyso insha Allah marka asxaabta qaaliga hadda distidii ayaan kusoo noqonay waxaan kusoo darsaday baradhadii meedaan arkayn markaan ku darayay baradhada biyana waan ku kordhiyey marka hadda waxaan ku darayo waa kamsaradii sidaad aragtaan iyo toon maxaa idhaahdaa in yar oo filfil ahna waan kula dhex tumay marka intaas ayaan hadda ku darsanayaa kadibna waxoogaa yar ayuu noo kari doonaa basashii barbarooniga noo diyaarsan ayaan markaan ka dajisan rabana ku darsan doonaa insha Allah bidnillaahi kariim maraqeena sidoo kusoo baxana waad arki doontaan maasha Allah waa kaasaa hadda baradhadii basashii ayaan ku darsaday sidaad aragtaanba maxaan idhaahdaa waa noo diyaar waan kala degaynaa insha Allah bidnillaahi kariim marka asxaabteeda qaaliga ah maraqeena hadda sidan ayuu diyaar noogu yahay bocorka yar ee cagaaranna waan kusoo jarjaray oo waxoogaa markuu dhinnaa ayaan dusha kaga daray bocorkana kariinsho badan uma baahna marka isagana waa kaas ah maraqi hadda sidaas ayuu diyaar noogu yahay maasha Allah quraacdeeni hadda waa noo diyaar hal meel ayaan kusoo wada ridanay inta badan anaga waan isla cunaa cuntada marmar ma ogiye maasha Allah walaaladii qaaliga ah quraacdeeni sidaas ayay diyaar noogu tahay maasha Allah tabaarakallah ilaahay waxaan uga baryaynaa inta haysano inuu ilaahay siiyo ku arsaaqo anagana dawo ilaahay nooga dhigo nagu daweeyo waa tasaa quraacdeeni maasha Allah sidaas ayay noogu soo baxday quruxda badan dhanka kalena waxaa boosto u timid gabadheeda yar maasha Allah Maariya fanaanad maxaan idhahdaa aabaheed u dalbay oo la jeclaaday ayaa maxaan idhahdaa maanta loo keenay marka waatana iyadana hadda boostadeedii yareed ayay furanaysaa way ku faraxsan tahay maasha Allah tabaarakallah fanaanadaas quruxda badan ayaa loo keenay marka hadda isku fiirinaysaa size-keeda waaye laakiin way gashanaysaa hadda waa taas way gashatay maasha Allah sidaas quruxda badan ayay u tahay iyadana ugu soo baxday asxaabta qaaliga waxaan noo balana fiidiyowga xiga waxaan igaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu